mas-uuliyiinta iyo xubnaha ururka Alfatras oo dantooda gaarka ka doorbiday danta guud iyo adeegida dadka jilicdasan iyo kaalmaynta inta ay hayntoodu yar tahay ayaa waxay si weyn uga qayb qaateen samata bixinta dadka ay abaaruhu ku habsadeen ee deegaanada gobolada galbeedka Somaliland waxaana safar shaqo oo gurmad ah ku yimid deegaanadani gudoomiyaha ururka Alfatras Daahir Cali Kulmiye iyo agaasimaha ururkaasi Mudane Cabdisalaam Muumin waxay qayb muhiim ah ka qaateen taageerida dadka jilicdasan iyagoo taakula kala duwan u fidiyay dadka deegaanada kala duwan ee gobolka Awdal gaar ahaan inta ku haboon in la taakuleeyo mas-uuliyiinta ururka Alfatras ayaa safka hore calanka u siday ururadii waqtigaasi gurmadka u fidiyay dadka ay abaaruhu saameeyeen waxaana si mugla uga qayb qaateen beero qodaalka iyo waliba qaybinta bacaha roobka laga isticmaalo xilliyada roobabka iyo dabayluhu ay jiraan isla waqtigaasi waxay ka dhagax dhigeen mas-uuliyiinta ururka Alfatras deegaanka Dareemacaane ee bariga magaalada Boorama ceelbiyood baahi xoogan ay u qabeen dadka iyo dunyada deegaankaasi dadweynaha deegaanka Dareemacaane ee bariga magaalada Boorama ayaa ka mahad celiyay ceelbiyood deegaankaas ay ka hirgeliyeen mas-uuliyiinta ururka Alfatras waxaana alla weyne uga bariyeen dadweynaha deegaanku mas-uuliyiinta ururka Alfatras iyo cid kasto gacan ka siisayba in alla weyne miisaanka xasanaadka ugu daro hirgelinta ceelbiyoodka deegaankani waxaana kamid ah hadaladoodii hadda xabadan waa bilow maalintii ay noo yimaadeen baahi fara badan baan sheegnay iyaga gacantooda ku arkeen imikana waxaan u gudbinaynaa arrintan waa calaamad waa bagaraysa ceelka ugu horreeyay waxa xoolaha ka cabeeyay dadka imanaya iyo dadka jooga hadda way inaga la socdayna arkayna waxaas waa baahi umada keenaysay inta maanta aad noo keentayna boqolkiiba baan idin ku mahadnaqayna aad boqolkiiba ayaan idin ku mahadnaqayna magaraysa way inaga arkaya xoolaha ka cabeeya caruurta yaryar ka cabeeysa de shalay ceelkaasi meesha kama qodin maalintii aan ku keenay eed magaraysa dhagax dhigayseen gaga cad bay ahayd maanta biyaha saa magaraysa laga dul magaraysa cid walba ay ka dul cabayso shimbiri baa ka cabeeya xoolihiiba de ka cabeeya wax kasto nacfo la keeno ma doonaba ku intifacsanaysa dad iyo xoolaba ka bacdi taa iyo tu lamid ah ka fiicana ilaahay iyo walaalaha iyagana soo caawiyay baan ka rajaynaynaa hadii ilaahay la garan sida qurux badan ee maanta la noogu soo gurmaday iyo tu ka si fiican oo baahideeda ayaan u baahanaa waxa kale oo hadda la yiraahdo ugu mahadnaqayna walaalaha iyaga iyaguna noo hawl galay ee wax noo keenay ee hadda la yiraahdo maanta baahideena haysay iyo biyo la'aanteena haysay iyo hadda la yiraahdo maanta aan ku baahi baxnay iyo iyaguna mahadle waan ugu mahadnaqaynaa inamada iyada hadda la yiraahdo maanta noo hawl galay iyo hay'adda hadda la yiraahdo Alfatras duca baan hadda la yiraahdo idin laabaynaa kuwa kale oo ducayno oo khayr qaba oo hadda la yiraahdo beesha gaarsiiya oo hadda la yiraahdo in la noo soo biiriyo iyo hadda la yiraahdo iyagana walaalaha iyo ka doonaynaa sida iyo hadda la yiraahdo ducaan ku soo gabagabaynaya Allah idin la jiro wiilal jire Allah idin ka dhigo dushiina naxariis ahaato waxaan ugu jecelahay jannada ugu horeysana Allah ina siiyo waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu noqdo mid sii jira oo ummaddu ay ka faa'iido oo ay xooluhu ka faa'iidaan oo quraantu oo cid kasta wax kasta oo ka halka ka hela biyo ay ka faa'iideystaan si ay mushqaayad iyo ajir ilaahay agtiisa uga helaan ciddii soo qoday ciddii soo kaalmaysay ciddii garab joogsatay ciddii sii fulisay anoo ah mas'uulkii fulinta lahaa ee ceelkani hawshiisa Alfatras fulinta u lahaa ee u sii fuliyay waxaan u mahadnaqayaa hay'adda Alfatras oo aan ka rajaynayno inay ummadda waxa maanta ay u qabatay ee manfaca iyo wax ka ballaaran oo kale u sii qabato ayaan ilaahay ka rajaynaynaa si ay ummaddu uga manaafacaadsato iyaguna ajir iyo xasanaad ay uga helaan walaalahooda ay soo caawiyeen mas-uuliyiintii Alfatrasna maalintii halkan yimaadeen waxay arkeen oo ay ka marakaceen inay dadkani u baahan yihiin ceelashan maalintii ay dhagax dhigayeen waxay ka marakaceen in loo baahan yahay oo baahidaasi jirto annaguna waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaad noqotaan kuwa nala shaqeeya oo shaqada halka ka sii wada oo aanay noqon kii ugu horeeyay uguna dambeeyay si kastaba ha ahaatee ceelbiyoodkan deegaanka Dareemacaane ay ka hirgeliyeen ururka Alfatras ayaa wax weyn ka dabooli doona baahidii biyo la'aaneed ee ka jirtay deegaankaasi taas oo dadweynaha deegaanku ay biyaha u doonan jireen masaafada ceelbiyoodka haatan laga helay masaafo ka fog
cabdilcasiis ibraahim cabdilaahi telefishinka universal magaalada boorama.